haddii la yiraahdo waxaan ka hadli doonaa academic research journalist ama journal academic journalism. Okay, hore waxaan uga soo hadalnay qaybtii hore article marka waxa la yiraahdo manuscript oo ay hal dhinac ka duulayeen. Markaana academic journal oo qoraalkii la sameeyay weeda uu markaa under progress ahaa iyo haddii uu ahaa mid dhammaystirmay intaba processka loo wado ama halka loo soo wadaay waa academic journal. waa halka journalku waa halka aad doonayso inaad ku publish gareyso oo ummadda inuu la wadaaga aad doonayso. Journalistkaas waa arki doonaa iyaga waxay kala leeyihiin kuwa indikisad iyo kuwa markaa aan indikisad ahayn oo bardhiyatar ah. Okay, haddaba marka journalka inaan fiirino inuu indikisad yahay iyo taas waa another lesson way, laakiin halkan waxaan u baahannahay isagu muxuu yahay inaan isla garano. horta journalku waa halka wax lagu soo publish gareynaa halka ma dhaafayo. That's that. level uu kala leeyahay, noocyada kala duwan uu leeyahay, qaar ma fili ka hadla, qaal all in one waa maximally way waxa soo dhanna hadii la yiraahdo weeyay. Laakiin macnaheedu wuxuu ku soo koobay isagu waa periodical area. waa meel periodically wax loo soo dhigo kaas oo ka kooban ama wax soo publish gareeyo kaas oo markaa ka kooban articles ay qoreen. Journalistka qaarkood waxay wax ku soo publish gareeyaan annually, sanadkiiba hal mar ay wax la soo publish gareeyaan. inta kale oo dhan reviewgi aqbalaadii wixii oo dhan haddii lagu aqbalo xataa sanadka hadda waxaa laga yaabaa inuu 2024 qaybihiisa hore ku jirnaa. haddii laga aqbalo March oo kale ama April ama June ama May laga aqbalay oo qaybta hore kamida markaa mataqaanaa sanadka ilaa iyo December waad sugaysaa in la soo publish gareeyo journal article-ka. waa kuwaas haddii ay annual yihiin. marka waxyaabaha inaad iska fiiriso ay ka mid tahay waxyaabaha inaad iska fiiriso ee loo baahan yahay qayb ka tahay waxa uu yahay frequency inta mar wax soo publish gareeyo inta issue uu leeyahay. Okay, كل ما قاعد كان غصب عنك for your one issue 1 issue 2 issue 3 قال هل issue اللي بالله والله انا ما سو marka annual waa soo. Okay, semi annual ayaa jira. semi annual waxa weeyaan waa sanadka barkii 6 bilood kasta ay wax soo publish gareeyaan. Okay, inta la sugaa hadii aad u arkaa marka ninkii sanadkii 6 bilood dhammaadkeedii markay maray hadii laga aqbalo nasiib baa leh. laakiin waxay inta kula taraaro sanadkii markuu 6 bilood markay dhamaatay bisha 7 bilaab rabto hadii lagu aqbalo caafi waxaad sugaysaa 6 bilood oo kale intay ka dhamaanayso. soo marka iyaguna ma xuma yani mar walba sanadkoodu badan yahay anigu ma aha inay aad u fiican yihiin kaliya ma aha, laakiin waa systemkooda ayaa sidaas ah. Okay, badanaana kuwa aadka marka professional u ah way isticmaalaan qaabka oo marka degdeg badan ma galaan. sidaan waa iska waa kuwa quarterly macnaheedu 4 bilood ba I think 3 bilood ba inay martaan yani sanadkii waxa loo qaybinayaa ilaa iyo 4 mar. soo marka 3 bilood ba hal mar ay soo publish gareynayaan. By monthly kuwani waa 2 bilood ba mar kuwa soo publish gareeyo. sidoo kale waxaa jiro mataqaanaa monthly kuwa okay, monthly waxa weeyaan bishiiba hal mar kuwa publishmentiga sameeyo. qaar kale waxaa jiro semi monthly sameynaayo oo hadda ay meesha ku jireen 2 week kasta way soo publish gareynayaan. kuwaas oo kale marka haddii ay indikisad yihiin waa ku recommend gareyn lahaa sababtoo ah degdeg ku jirto waa dareemi karnaa macnaha qofku koob markuu yahay maaragtay laakiin waxay ku xiran tahay markaas journalka indikisadnimadiisa iyo marka informationkiisaas kale in ay ku fadhiyaan. soo marka waxyaabahan oo kale oo dhan meel laga fiirinayo leedahay we shall see hadda isku furi mayno laakiin inay jiraan waa inaan ogaanaa oo kaliya. Okay, types of journalists based on specialization. markii la fiiriyo waxyaabaha ay soo publish gareynayaan speciality-ga waxa weeyaan journalistka labadan qayb ayaa loo qaybiyaa. Okay, qaar waxa weeyaan labadan ay kala noqon karaan. midna waa multidisciplinary journalist, waa journalo mataqaanaa different fields ama variant mataqaanaa waxa la yiraahdo fields ka hadla oo maxay disciplina badan mataqaanaa aqbala oo caafimaad, engineering, computer science, technology, whatever mataqaanaa environment waxa soo dhan geology wala aqbalaya. Okay,
energy ka hadlayo whatever way jiraan and it's okay. sidoo kale field waxaa jira kuwa loo specific journalist macnaheedu waxa weeye field gooniya ay ka hadlaan field maxay waa specific fields macnaha sidaas ayaa loo jeedaa waa journalist ka hadla area gooniya isaga wuxuu ka hadlaa oo kaliya teknolojiyad bisan ka hadlaa ama HRM ka hadlaa oo kale so markuu HRM ka hadlaa oo baahan ku publish gareyn karo so tanna adut waxa laga baahan yahay in aad kala garan karto waxa aad qorayso bilowga hore intee ku wada journal all of waxa walba aqbala ma journal specific ka hadla ayaad markaa ku publish gareyn rabtaa laakiin macnaheedu maaha in kuwa specific ah ay kuwa kala ka fiican yihiin multidisciplinary ama kuwa multidisciplinary ay ka fiican yihiin field specific may aha macna hadii ba ay macnaha ma taqaanaa impact factor kooda ay kulba ku xiran tahay kuwaana marka qaar kuwa ka fiicnaa karo kuwaana kan ka fiicnaa karo okay and first macna journal soo kuwa ka tirsan kuwa way kala wanaagsanaan karaan kulli impact factor ayaa laga dhigaya waana baran doonaa sida looga fiiriyo ama sida score wax loo yaqaan okay hadaba marka hore qofku inuu yaqaan halka wax ku publish gareynayo field specific mise an maaragtaay kadaaliyo okay sidoo kale waxaa jiro wax la yiraahdo ABC oo ah article publication charge lacagta marka la fiiriyo xagga lacagta charge ku baxay marka la publish gareynayo noocyada kala duwan ayuu leeyahay nooca koobaad waa open access journalist waa journalo dadku si free ah ay wax ka akhrisanayaan laakiin publisherka ama researcherka isagu lacagta u dhiibay iyo kuwa subscription journalist ah oo dadku lacagta dhiibayaan laakiin researcherka uu si bilaash ah oo wixii u publish gareynayo ama looga qaadayo loogu soo gudbinayo loogu soo bandhigayo iyo hybrid journalist waa journalo labadaba isku ah oo open access na ah si bilaash ah dadku ugu soo bandhigo iyo kuwa dadka lacag ka qaado hadii sida kale la yiraahdana kuwa qofka publish gareynayo lacag ka qaadayo dadka caadiga ah oo aqrisadana maaragtahay aan lacag ka qaadin open access halka kan kalena uu yahay so marka hybrid waa kulli labadooda isku daray wax ku confuse gareyn hadaba kuna marka open access waxa weeyaan in adigu aad marka hada researcher tahay lacag laga qaado dadkana free loogu soo bandhigo subscription waxa weeyaan in adiga aan lacag laga qaadin laakiin cidda maaragtahay soo aqarsanayso aan hadhow xiga rabtahay lacagta laga qaado hybrid na waa labadaba hadaba marka keeba labadooda fiican ama saddexdooda fiican kulli labada kee fiican weeyaan sababtoo hybrid midka xataa ama kana isticmaalay ama kana isticmaalay yani journalka labada uu aqbalaa laba option uu leeyahay marka publish sameeyay malay leeyahay tan sifiriin aqoon iska saarta oo lagu weydiinaya all right hadaba marka open access journalist waxyaabo aad kugu fiican waxa kamid ah horta qofku wax publish gareynayo sida caadiga wuxuu u socdaa iyo article-ka labaduba ay aad u baahi goobayaan impact factor wax la yiraahdo IF maxaa ama side score slide waxa weeyaan in badan la xigto article-kaaga ayaad baahi goobaysa adiga article qortay article-kaaga inta maroo la xigto ayaa adigu waxay ka dhigaysaa maxay qof wixiisi la xiisaynayo waa sax hadii inta post aad soo dhigtay cid comment ka soo dhiibaysa ka waran macnaheedu waxa weeye interest ma ahwa ama dad badan ma gaarin saas amal leh waa open access marka waxa ku fiican waxay tahay aad loogu jecel yahay adigu waxa aad soo publish gareeyay lacag ku bixi laakiin ugu dambeyntii dad bilaash ku qaadanayaan bilaashtaas ay ku aqarsanayaan marka inta qof oo review gareysa ama aqarsato review gareysan adigu macnaheedu ku sameeyay lambar 2 waxa la yiraahdo journal-kana asna macnay u sameynaysaa oo waxa weeyaan isaguna waxa la yiraahdo waxa jira quartile oo impact factor-ka markii la cabiro oo quartile level uu noqonayo naqashada uu noqonayo marka quartile numberkaas waxa gaarsiin doona waxa la yiraahdo inta mar ee article-da ku dhex jiro la xigta hadii journal marka la ayay in la xigta ma fududaanayso sida caadiga xigashaduna goormay suuragal ah xigashadu ma aha laakiin ay taw xigato ay min internet ka soo qabo ama journal-ka inta la imaado qof buug caadi isku qoray oo warka xigto warka xigtay oo jaacad isaga qalin jibiyo taa xigasho ma loo aqoonsanayo okay
hadduu xataa inta xigto oo journal abbreviator oo wax ku soo publish gareeyo still lama aqoonsanayo kaliya waxaa site-ka koowaad ama markaa xigashada koowaad lagu aqoonsanaya article-ka aad qortay ee aad ku publish garayso journal la aqoonsan yahay indikisada deedna oo qof kale xigto daatadaadii uu ka helo deetana uu markaa ku publish garay isaguna journal la aqoonsan yahay markaa ay waxay noqonaysaa first citation ayaad haysataa article-kuna kii koowaad markaa uu ka haya adiga haddaba marka adiga mar walba ku baato journal-kuna uu sii badanay mar walba journal-ku sii badatana quartile-kiisa sii kacayo so marka dad waxa weeye habka ay hawshu socodsiin haddaba marka subscription-ku isaguna ma xuma sababtoo adiga bilaash laga qaadaya lacag lagama bixin doono sorry lacag lagama qaadi doono laakiin inta dadku ay aqarsan doonaan ayaa yaraanayso ama ay side gareyn doonaan maadaama uu lacag noqday oo sida caadiga adigu markaa xog raadinayso waxaa arki doontaa journal walba oo markaa mataqaanahay article walba oo markaa lacag ah waxa weeye xalaga inaad ka gudubto inkastoo ay jirto isagoo lacag ah inaad abstractigi iyo kale ah markaa background-kii meelaha yar waxaad soo bandhigay inaad warka qaadato deetana markaa aad citation ahaan u isticmaasho adoo buuggii dejin site bis inaad tiraahdo iyadoo waa wax jira laakiin somehow macna ma samaynayso adigoo heli karo mid aad iyo kugu degayo article nadiif ah xogtiisoo dhan bilow ilaa dhammaad arki karto angal walba ka fiiri karto oo resultigiisa fiiri kartid dee background-kiisa kabuu mashquulaysa sida caadiga ah laakiin technically way jirtaa okay science oo kalena kusoo jibsato oo aad mataqaana article ku furatana waa wax jira laakiin iyada naftirkeeda journal 2 sano ama ka badan ee gudbay ayaa mataqaana lagu sameyn karaa oo science ku soo gudbin karaa ama ku jirin karaa haddaba marka hybrid kuna waa kii aan sharaxay labada option ba isku lahaa soo marka journaladu marka open access kaas u badan yihiin subscription kana way jiraan haddaba marka adigu keebaa doonaysaa hadii la yiraahdo ama waa lacag bixiso ama inkastoo ay jirto kuwa open access oo lacag ah maaragtahay oo lacagna bixisa ay tahay si dadka bilaash loogu soo bandhigo oo haddana wadamada marka hadda fed maaragtahay developing countries ka marka sida Soomaaliya oo kale ama even hadda kuwa qaas East Africa iyo kale hadda wadamada Afrikada maaragtay qoraalada laga soo sameeyo dadka ka socda ee academiga la dhahayo maaragtahay 80% ama 90% discount loo sameeyay oo adiga dhanba 100 ama 200 dollar laga yaabo inay kaaga soo aado halka 3,000 iyo 4,000 lagu publish karayna dunida horumartay soo marka macnaheedu waa lagu yara fududeeyay soo marka waxa laga yaabaa halka markay barayso saaxiibada qaar ama inaad isweydiiso aniga see lacag ku sameynaa marka waa su'aal taagan oo markii ashirka halkaan oo kale aan barayso ugu soo dhacay horta cilmi baaris haddaad rabto inaad sameyso oo cilmi baaris noqoto haddana cilmi baarista iyo dadka waxa u soo bandhigay inaad lacag ka sameyso oo qorshahaaga yahay macnaheedu waxay tahay wadda mudwac ah ayaad haysaa ma ahan mid dhacayso waa laga yaabaa in qaabab kale oo farsamaysan lacag lagu sameeyo oo markaa maaragtahay la qadin consultation dhanka iyo maaragtaa ah laakiin maqaalo aad adigu qori ama sharaftay ownerka aad ku hesho inay adiga grade-kaaga ama esteem-kaaga kor u qaado deetana sidaas aad ku noqoto lacag aad ku kasbato laakiin si straight article-aan qoray ya subscription kale waxaa dad qaar dhahaan aniga maadaama ama open access maadaama aniga lacag laga qaadayo ama xataa aniga laga qaadin aniga free macaadaadida loo soo bandhigo cid walba u baahatana lacag laga qaado war adiga article-kaaga dhan waxaa laga yaabaa in hal qof uu site gareeyo sanadka oo idin la dheeraaba taaba hadiiba uu journal hal article halkaaga article hal citation uu ka helo sida saxda sababtoo waa dareemi karta ayada publishment-ga waqti soconaya macna in oo like publishment process-ka in lagu aqbalo la soo publish garay it takes time so marka macnaha rarely ay ku dhici kartaa in adiga wax laga xigto soo marka haddii aad sii tiraahdo marka aniga lacag inaan ka sameeyaan rabaa haddii maxaa horu socona midda kale hadafka laga leeyahay cilmi baaris la sameeyo maba ahayba waa taariikh sanada soo sheegayni in adu aad lacag ka sameyso maba ku jirin options ka xasuusato casharkii aad ku wareega okay totally marka waxa weeyaan magacaaga kor u qaad sidaa rasmo midda kale naga Soomaaliya hadaan dhibaatooyinka nees waxa kamid oo aan doonayo inaan maskaxda ka saarto it's like wax walba inaan dhahdo maxay tahay benefit war benefitku isaga imaanayo magacaaga iyo mansabkaaga inaad kor u qaado oo aad soo banaanka iskeento horta koob ka shaqeey kadib think will come aniga waa adiga waqti weynayo the energy waxay ku qabato waad wey doontaa one day consultation saa la sameeyaa hadda waxaa jiro yar maaragtahay mo friends aan ahay oo jooga taki laakiin
rumalaynayo inuu yahay maaragtahay dadkan ka soo jeedo wadamada carabta marka I don't know in ay noqon karto waxyaabo markaa somehow iska qaldan laakiin wuxuu samaynayaa waa associate professor weeyaan it's like wala tani u sameeyaa ay mataqaanaa horta ay triple ku tirsan sida caadiga laakiin he's like very fantastic wuxuu samaynayaa waa professor jaacadii ku tirsan yahay dadkiibu wax u qorayaa oo marka dad adiga researcher tahay qoraalka sameeyaa lagu leeyahay qoraalkii aad samaynayso ama PhD maadaama aad samaynayso inaad publish garayso maadaama ay qasab kugu tahay waxa weeyaan asiga oo professor ku yahay waxaa laga yaabaa sometimes dadkan hadda carabta kasoo jeedo oo kale oo energy tira badan iyo aanay kuwarin lacagtana haysta halkaasa qof 3,000 4,000 oo dollar oo markaa ka baxsan lacagta lagu publish garayna dhiibanayo oo articlekii bis in loo qoro processkana laba maro lacagta asagoo baxsanayo in mataqaanaa uu kaaga baahan yahay lacag intaas leegna looga qaaday ninka by the way isagu siiba qoray ee adigu kugu qoraya wuxuu ku leeyahay go shaqayso hawshan qor macnaha maadaama ardaygii aad tahay publishmentna laga rabo waxaa faanta uu sameeyo adiga laga rabo second or third ama marka number of articles in laga doonayo laakiin hal xabo fast author iyo fast author ka dib ka qoranaya waxaa lagu leeyahay kanan kala shaqeynaya aniga processkana kula maraya وعاونيا سي ادليست اد marka third or second marka author adigo aad u soo baxdo oo marka shuruudii ila shan xad maadaama laga rabay afartan ay ahaayeen correspondent author aan laga rabay fast author aan laga doonayn macnaheedu waxa weeyaan ka waran okay waa adiga dana qoyso laakiin ninka koobaad ninkaas laga dhigay adiga taqaanid wuxuu yahay laakiin ninkaas maxaa laga qaadaya money lacag tira badan laga qaadaya but it's like wax yaro maaragtay aad moodo inay process aan qadan tahay ay noqon kartaa laakiin si walba u isticmaasho academic in maaragtay dhinacyada kale whatever waxa soo idin waxa weeyaan way imaanaysaa lacagna waad ka samayn doontaa diilaya soo marka waxaan rajaynayaa in intaas ka leertahay halkaan aad soo koobaya insha Allah taala halka laga kala dooraa sida loo arkayo taas insha Allah taala marka publishment ka sameeyno عشان تقول لهم إنه جاي أيام ملايين أيام مرة ما بركي دونا بوتيران دي هذا ما تسنتين السلام الله عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.